السلام عليكم. qofka markuu rabo inuu isbedel sameeyo laba caqabado waxaa jirta Soomaali ahaan dhamaanteen qabsata. caqabada koowaad familka iyo reerkeena naga qabsata. hooyooyinkeen ha ugu horayaan in lagu dhaho waxaan ma sii wadeyside maxaad waqtiga iskaga luminaysaa maxaad lacag ugu khasaarinaysaa. taas waxaan rabaa hal mid inaad uga samato baxdo kow sababta saa lagu leeyahay waxay tahay adiga expectation kaaga high ah dadkaad waxaad ka rajaynaysaa 2 usbuuc ama maalmo markaad wada in lagu saacabuto mo lagu dhaho oh my god wax fiican aad samaysay horumaraad ku talaabatay haddii lagu dhihi waayena aad niyadda iska jabiso waa labe consistency gaaga yay dadku shakisan yihiin oo waxaa lagugu bartay wixii aad bilowdo ma dhamaystirtid dadkan waxaad tusisaa in wixii aad adigu bilowdo aad dhamaystiri kartid maantana waxaad ku dhahdaa tan way ka duwan tahay tii hore li'annahu ereygaas afkaaga ka soo baxayo subconscious mindkaagu u gudbi doonaa maskaxdaada xifdin doonto identitygaas aad yeelanaysaa shakhsigaas wixii uu bilaabo dhamaystiraad yeelanaysaa midna ogow inta badan dadku qalbiyadooda iyo fikradaha ka soo maaxanayo adigu ma kontrooli kartid laakiin laba shay aad kontrooli kartaa kow sida aad uga falcelinaysid iyo adiga waxa ka soo baxayo mar walba waxaad isbartaa adigu inay positive ka soo baxdo adigu inay natiijada ku muuqato adigu inuu isbedelka wax sax ah kula egyahay mahma culayska ka hor yimaada waxaan soo gabagabeynaa berito markaad da' noqoto hal shay oo xajir aad u shalayn doonto ma ahan dadka maxay ugu dhihi jireen mana ahan qancintooda waxaad u shalayn doontaa wixii nafteyda ay ku faraxsanayd ma ku soo noolaaday jawaabta hadday maya noqotana wax ku harsan malaha السلام عليكم.